السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawow barnaamijka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب بدا قالي وحرن جنك هرمركينا يوتيوب وإنجنير عبد الناصر جمعالي وإذن الله رمضان كريم. Engineer su-aasha koowaad aan ku weydiinayna waxaa waaye marka koowaad aan bilaabi rabo YouTube maxaa liiga baahan yahay aniga? waxyaabaha YouTube markuu qof inuu bilaabo rabo waxaa jiro habab ama nidaam loo maro. kow waxaa ugu horeeya in horta qofku uu samaysto Gmail-kaas marka uu samaysto oo channel uu kasii abuurana channelkaas markuu abuurto kadib wuxuu awood u yeelanaa in uu channelkaas wax soo dhigi karo videogaasna la share garay karo dadka. nidaamkaas waa nidaam jiro waxaana shardi ah waxyaabaha basic ah oo qofka muhiimka u ah waxaa kamid ah in internet fiican uu heli karo markasta si videoga quality-giisa maadaama MB-ga ama size-ka videoga uu mararka qaar 1 GB gaari karo waa in aad heli kartaa internet free ah ama internet data ah oo aad kugu filan markaas. Okay, su-aasha labaad aan ku weydiinayo si macnaha aan lacag YouTube aan ugu sameeyo maxaa liiga baahan yahay? horta Soomaalida waxaa isaga wareersan badanaa marka la joogo YouTube-ka qofka haddii uu soo galo inaan lacag ka sameeyaan rabaa way kugu adkaanaysaa inaad gaarto hadafkaaga sababtoo ah hadafka ma aha lacag waa inaad adiga dadka usoo gudbisaa wax tayo leh ama barnaamij muhiim ah aad ka hadashaa kadib waxaa ku gaaraysaa hadafkaaga in aad wixii aad rabtay usoo gashay aad hesho. haddaan usoo laabto su-aashaada oo ah YouTube-ka lacag sideen ugu sameyn karaa ama mise lacag ayaan ka sameyn karaa. YouTube-ka waxay ku xiran tahay hadba views-ka adiga aad heshid iyo meesha lagaa daawaday haddii ay noqoto America ama wadamada GX-ka oo ADS-kooda uu raqiis yahay lacagtaada way badanaysaa. haddii laakiin Africa ama Soomaaliya aad joogtid waxaa laga yaabaa inaad 1000 views ka hesho 0.5 way kugu adkaanay marka inaad gaarto dariiqa saxda ah laakiin markasta waa inaad hadafkaaga aadan ka dhigan lacag si aad u gaartay hadafkaaga saxda ah waa inaad sameysaa barnaamij ama wacyigelin ama wax adiga aad hibo u leedahay halkaana ku soo bandhigtaa. su-aasha labaad macnaha dadku ugu xiran page-ka horumarkeena ay ku weydiinayaan maxaa xiga hadda oo barnaamij cusub ah aad kusoo kordhi rabtaa? barnaamijka markaan soo wado uu ka duwan yahay markii hore fursaduhuna sanad kasta way isbedelayaan sida waqtigu isku bedelo sanadka. markaan waxaan rabnaa insha Allah inaan soo gelino barnaamijyo maadaama Soomaalidii ay ku dhiban yihiin dad badan oo YouTube inta soo galeen kani jaban ay jiraan inaan ka hadalno insha Allah ama barnaamijkaan soo wado waxa waaye xayeysiinta YouTube-ka oo loo yaqaan Google ADS-ka iyo SEO-ga oo ah barnaamijka ah SEO-ga oo ah qofka inuu isticmaalo video description fiican leh inuu noqdo tagiska ama dadku ku taageeranayaan ay yihiin dadkii saxda ahaa keyword-ku adeegsanayo erayadu adeegsanayeen ay yihiin ama title-kiisa mid soo jiidasho leh. barnaamijkaas waa barnaamij aad u muhiim ah oo aysan Soomaalida aysan ka hadlin oo ah xayeysiinta insha Allah si toos ah ugu geli doona waana next mowduuc xiga aan soo imaan doono si live ah halkan ayaan ku soo bandhigi doonaa insha Allah. su-aasha ugu dambeedo dadka inay bilaabaan YouTube ka rabo Soomaalida ah maxaad kula talin lahayd? waxaan kula talin lahaa qofka intuusan YouTube soo gelin waa inuu gartaa waxa uu rabo inuu halkaas ku soo bandhigo. haddii aad adiga soo qaadato video copyright ah waad ganaaxan tahay waqtigaagana waxaa ku lumisay meel eber ah waxaa kaa bixi doono internet oo lacag aad ku bixisay iyo waqtigaaga oo ah meesha ugu muhiimsan bini'aadanka. marka sidaas darteeda waa hadafkaaga waa inaad garataa hadafkaaga markaad garatid kadib waxa kale oo iska imaanayaan waa inaad usoo gashaa barnaamij hebel aan rabaa aniga riwaayadan usoo gala YouTube-kan aniga waxaan rabaa inaan dadku wax u faa'iideeyo aniga waxaan rabaa inaan cashir hebel ka hadlo ama barnaamij hebel ka hadlo aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij action ah. hadda intaas usoo gashay YouTube-ka waxay noqonaysaa in adiga hadafkaaga garatay sidaas darteeda wuxuu ku noqonaa markaas barnaamij aad iyo aad kugu muhiimsan dadkuna ku soo jeedanayaan dad badan oo kugu soo biirayaan. aad ayaa u mahadsan tahay injineer
insha allahu tacaala waxaan rajeyn doonaa fiidiyoyadan oo kale oo dhiirigelinta ah inaad sii wadi doontid. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.